addoon u noqo oo kitaabka rabbi dhaqan ka dhigo oo xumaanta iyo macsiyada isaga tag taas ayaa sharaf iyo qiimo ku yeelanaysaa allah subxaanahu wa tacaala dadka uu dulaynayayiin kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanu yagsibuun waa kuwa uu rabbi sheegay qalbiga in raan iyo wasaq iyo qurun ka fuulay qalbigooda waxaa mirideeyey shirkiga waxaa mirideeyey kibirka waxaa mirideeyey xaasidnimada waxaa mirideeyey xaaraan cunidda waxaa mirideeyey xamta waxaa mirideeyey beenta waxaa mirideeyey dhibka muslimiinta waxaa mirideeyey caasinimada oo muslimiinta iyo ehelkiisa iyo diintaba caasi ku noqday mirir buu ku noqday waxa ay kasbadeenba alla qalbigooda ku daboolo diintu ma gasho dadka musiibada iyo cadaab midkiisa daran la kulmi doonana waa dadka noocaasa waxaa laga rabaa qofka muslimkaa inuu arrintaas ayadaa ka waantoodo maanta ayay kula sinantay oo goor tahay axad walbow ka feker shalay ma joogin adduunka kan oo calool hooyaad ku jirtay iyo meel ka sii fogaan badan maanta waad joogtay adduunka kan berritana jiri maysid ee qabri baa lagu geynayaa saas dambe oo ku xigtana maxkamad alle oo aan racfaan iyo looyar iyo kuudoodo iyo laalusin midna lahayn baad tegi doontaa meel dambe oo laga soo laabtan aan lahayn ka caqli yeelo oo shaqayso oo u diyaargarow maalintaas ayada ah waa maalinta uu rabbi dhihi doono liman ilmulku lyawm waryaa maanta boqornimada iyo awoodda iska leh maalintaas iyada maxaa si gaara loogu yidhaahdaa ilaahay yowmuddiin buu maalig u yahay adduunka inta la joogo kuwaa wax sheegta anaa boqora iyo anaa ra-iisul wasaaraha iyo anaa madaxweyne iyo waxbaa wax sheega laakiin maalintaas iyadaa sharsi wax sheegi karaa ma jiro nin oran kara anigaa tuulo yar u taliyaa ma jiro laakiin maanta waxaad maqlaysa aniga tuuleedlaa layga doorta iyo boqor baan ahaa iyo aabbahay baa boqor ahaa iyo anaa saas ahaa saasaad maqlaysaa laakiin maalintaa ma jirto marka la aamuso wax u jawaabo la waayo allah isagaa isu jawaabayo o odhanayo lilahi alwaaxid alqahaar waayo wax hadli karaaba ma jabaan meesha rabbiga waaxidkaa oo asagoo wax kasba keliga ayaa iskale awooda allah subxaanahu wa tacala isuu yeelayaa maalintaa alyawma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat waa maalin naf walbaa waxay kasbatay laga amaal marinayo cid la dulminayo lagu xadgudbayaana aysan jirin axadka daalimkay oo diinta dulmiyey ama ha ku dulmiyo inuu lugooyo ama ha ku dulmiyo inuu ku dhaqmi waayo ama ha ku dulmiyo dadkeeda inuu dhibo ama ha ku dulmiyo inuu barabagaan iyo been ku furo ama ha ku dulmiyo inuu dad kale meel ka soo buuskaray iyada dhibaato u geysanaya axadkaa isaga ayaa maalintaa dulli ku dhacaya axad walba is-ilaali oo rabbigaa ka baq oo shiddada qiyaamadu waa mid darana u diyaargarow dadka dhibaatada badano heli doonto waa dadka rabbigood laga xijaabayo kallaa innahum can rabbihim yawmaidin lamaxjuubuun uma innahum lasaalu ljaxiim rabbi ma arkayaan naarta jaxiima la yidhaah ayaa laleeyahay gala waa midaad ahaydeen kuwa beeniye eh dadka noocaas loo ornaya waa dadkee waa kuwa allah aayad kale ku yidhi wa yawma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda alaysa fii jahannama matwan lilmutakabiriin waxaad arki doontaa maalinta qiyaamada dadka beenlowlayaalka ah oo rabbi ku been abuurtay oo xadgudbay oo diinta layacay oo mujrimiinta mushrikiinta mulxidiinta sayaadiinta dimuqraadiyiinta iyo shuuciyada isugu jiray wejiyaalkooda waa madmadoobaan mugdi bay noqonayaan haye balaayaa daboolaysa wejiga markaasuu rabbi odhanaya subxaana wa tacaala war jahannaba sow ma ahan dadka kibirka badan meel hoyaad iyo harsimo iyo aqal iyo meelay jirtaan looga dhigo